haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii qurbo joogta iyo Xuseen Nuur Xaji. kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida ku nool Jarmalka caqabadaha haysta iyo sida ay isugu xiran yihiin. ku dhawaad 50,000 oo qof oo Soomaali ah oo 45,000 oo kamid ah aysan wali qaadan dhalasho, 7,000 sharci sugayaal ah iyo ku dhawaad 4,000 oo la siiyay diidmo ayaa ku nool dalka Jarmalka, sida uu qoray bogga Bundestag ee baarlamaanka dalkaasi Jarmalka. Soomaalida ugu badan ayaa dalkaasi tagay wixii ka dambeeyay 2010 waxayna kuwooda ugu badan ku nool yihiin magaalada München ama Munich iyo magaalada kale ee Kassel ee dhacda bartamaha dalkaasi. maadaama tiro intaasi leeg oo Soomaali ah oo badankood jooga wax ka yar 10 sano ay ku nool yihiin dalkaasi, sidee bay isaga warqabaan? waa kan Axmed Kadiye oo kamid ah Soomaalida ugu firfircoon dalkaasi oo qadka taleefanka ugu waramaya barnaamijka Qurbe. mahadsanid in badan Xuseen, adiga iyo dhageystayaasha waan idin salaamayaa. Soomaalidu waxay ku kala firdhisan yihiin 16 gobol ee Jarmalka. magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka yaryarba way joogaan. iska warqab nuuci la rabay ma jiro, balse magaalooyinka waaweyn waxaa jiro ururo bulsho iyo jaaliyado Soomaalida isku xira. sidoo kalena Yurubta kale inta ugu badan waxaan uga duwannahay Soomaalida Jarmalka waxay leeyihiin bogag Facebook ah kuwaasoo magacooda ku qoran oo ayna intooda ugu badan ku jiraan, halkaasoo ay runtii aad isaga warqabaan wax walba oo dalka Jarmalka ka dhaca ee Soomaalida quseeyana iskula wadaagaan. inta badan Soomaalida iyo muhaajiriinta kaleba marka ay tagaan dal cusub waxaa soo wajaha caqabado kala duwan sida helidda sharciga iyo waxyaabo kale. Soomaalida Jarmalka ayaana kamid ah kuwa caqabadahaasi haysta, sida uu barnaamijka u sheegay Cabdulqaadir Qaasim oo kamid ah Soomaalida ku nool dalkaasi. guud ahaan caqabadaha haysta Soomaalida ku nool wadankan waxaa kamid ah dhanka sharciyada. wadankan Soomaalida way ku cusub tahay markay yimaadaan dhibaatooyin badan ay kala kulmaan dhanka sharciyada. sidoo kale barashada luqadda Sprachkursiga. wadankan luqadiisa waxaa la sheegaa luqadaha wadamada Yurub mid kamid ah kuwa adag inay tahay. marka dadka da'da ah inta badan iyo dadka badankoodba barashada luqadda dhibaato badan ay kala kulmaan. sidoo kale aqoonsiga Soomaalinimada qofka inuu caddeeyo, meelaha qaar dhibaatooyin badan ka jiro arrintaas qofka inuu caddeeyo Soomaalinimadiisa. sidoo kale dhalinyarada dhibaato aad u weyn waxay ka haystaa dhanka balwadda noocyada kala duwan leh, taasoo meelaha qaar markaa tagtid aad ka dareemi kartid xabsiyada iyo meelo badanba dhibaatada ka haysato dhalinyarada balwadda. waxaa jiray warar la isla wadaagayay baraha bulshada warbaahinta Jarmalkuna ay qortay oo la xiriira dhibaatooyin ka dhex dhacay qoysas Soomaaliya. sidoo kale waxaa jirta in Soomaali laga celiyay dalkaasi kuwaasoo qaarkood loo celiyay Soomaaliya. waa kan mar kale Axmed Kadiye arrimahaasi ka hadlaya, wuxuu ku hormarayaa dhibaatooyinka ka dhex dhacay qoysaska. xaqiiqatan waxyaabo qaar oo ay Soomaalida Jarmalka degan ka wada argagaxeen uu ka dhacay dalkan oo ay Soomaali kala geysteen. waa sax, sanadkan way jirtay gabar uu ninkeedii dilay, Allaha u naxariistee. 2 sano ka horna nin xaaskiisa mindi geliyay wuu jiray, balse falal xad dhaaf ah oo soo noqnoqday amaba joogto ah ma ahan. laakiin dhacdadii sanadkan ugu dambeysay ee gabadha uu saygeeda dilay ayaa noqotay mid baraha bulshada aad ugu faafta. taasi ayaa malaha tuhun keeni karta in Soomaalida Jarmalka dhexdooda ay falal ceenkaasi ah kusoo bateen, balse sidaasi loo dhigayo hadalka ma ahan. sanadkan 6dii bil ee ugu horeysay Soomaalida dalkan Jarmalka laga celiyay, wadamada kale ee Yurub ha loo celiyo amaba Soomaaliya ha loo celiyo. tiro ahaan Soomaalidaasi la celiyay waa 90 qof, balse kuwa dalkii hooye loo celiyay tiro ahaan waa 4 qof sida ay xukuumadda Jarmalka sheegtay. celinta dadka Soomaaliya loogu celinayana mar waa qaab qasab ah oo dadkii oo aanan rabin ayaa la celinayaa, mar dadka qaar ayagaa doorta in la celiyo, marna dad dambiye galay oo xabsiyo ku jiray oo la celinayo ayaa jira. laakiin celinta ugu badan waa tarxiil qaab qasab ah ku yimaada. marka laga soo tago caqabadaha haysta Soomaalida ku nool dalkaasi Jarmalka, waxaa dhanka kale lagu amaanay kuwa ku cusub gaar ahaan dhalinyarada sida ay diyaar ugu yihiin inay dhex galaan bulshooyinka kale iyo barashada xirfado cusub oo ay ku maareeyaan noloshooda, sida barnaamijka Qurbe u sheegay Xasan Baalle oo kamid ah ganacsatada Soomaalida ee ku nool dalkaasi. runtii horumarada ay sameeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee Jarmalka ku nool way badan yihiin.
waxaa kamid a ganacsiga noocyadiisa kala duwan oo runtii aada ugu soo badanaya magaalooyinka ay soomaalidu degtay. dadka inta badan dhalinyarada ku nool Jarmalka way shaqeeyaan, gaar ahaan ragga. sidoo kale waxay bartaan xirfadaha qaybahooda kala duwan. waxbarashada caadiga sida jaamacadka iyo kuliyaadka way ku jiraan. waxaa yar ka qaybgalka siyaasadda, sababtuna waxay tahay weli waa dad cusub oo waxay u badan yihiin inay cusub yihiin. laakiin waxaa jira ururo ka shaqeeya arrimaha bulshada sida isdhexgalka, isboortiga, arrimaha masaajida iyo isku wadida bulshada. kasukow caqabadaha u gaarka ah Soomaalida iyo dadka kale ee sogolootiga ay ku nool dalkaasi, waxaa jira dhibaato kale oo dhammaan dadka dalkaasi ay ka wada siman yihiin, kaasoo ah xanuunka COVID-19. ilaa iyo axaddii shalay ahayd 9295 qof ayaa dalkaasi u dhintay xanuunka COVID-19. haddaba sidee buu Soomaalida u saameeyey xanuunkaasi? waa kan mar kale Axmed Kadiye. dowladda Jarmalka markii ugu horeysay si wacan ayay ula tacaashay ka hortagidda cudurka corona. Soomaalida dalkan deganna oo ah kuwa dhalinyaro u badan, wax cabasho badan oo dhanka cudurkan ah kama aysan soo yeerin, balse waxaa jirtay xarumo iyo meelal kaamam ah, meelahaas oo dadka ku jiray Soomaali xataa ay kamid ahaayeen, oo uu cudurku si xun ugu faafay. dhanka kale saameyn waxaa jirto in dadka qaar oo shaqayn jiray ay shaqooyinkoodii ku waayeen xaaladda lagu jira awgeed, qaarna saacadihii ay shaqayn jireen ay soo yaraadeen. taasina Soomaalida waxay kala siman yihiin bulshooyinka kala duwan ee dalkan Jarmalka ku dhaqan. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay Soomaalida ku nool Jarmalka, caqabadaha haysta iyo sida ay isugu xiran yihiin. inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo. mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijka Qurbe inoogu soo diyaariyey magaalada Toronto. haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii qurbo joogta iyo Xuseen Nuur Xaaji. kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno Soomaalida ku nool Jarmalka, caqabadaha haysta iyo sida ay isugu xiran yihiin. ku dhawaad 50,000 oo qof oo Soomaali ah oo 45,000 oo kamid ah aysan weli qaadan dhalasho, 7,000 sharci sugayaal ah iyo ku dhawaad 4,000 oo la siiyey diidmo ayaa ku nool dalka Jarmalka, sida uu qoray bogga Bundestag ee baarlamanka dalkaasi Jarmalka. Soomaalida ugu badan ayaa dalkaasi tegay wixii ka dambeeyay 2010, waxayna kuwooda ugu badan ku nool yihiin magaalada München ama Munich iyo magaalada kale ee Kassel ee dhacda bartamaha dalkaasi. maadaama tiro intaasi leeg oo Soomaali ah oo badankood jooga wax ka yar 10 sano ay ku nool yihiin dalkaasi, sidee bay isaga warqabaan? waa kan Axmed Kadiye oo kamid ah Soomaalida ugu firfircoon dalkaasi oo qadka taleefanka ugu waramaya barnaamijka Qurbe. mahadsanid in badan Xuseen, adiga iyo dhageystayaasha waan idin salaamayaa. Soomaalidu waxay ku kala firdhisan yihiin 16 gobol ee Jarmalka. magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka yaryarba way joogaan. iska warqab nuuci la rabay ma jiro, balse magaalooyinka waaweyn waxaa jiro ururo bulsho iyo jaaliyado Soomaalida isku xira. sidoo kalena Yurubta kale inta ugu badan waxaan uga duwannahay, Soomaalida Jarmalka waxay leeyihiin bogag Facebook ah kuwaasoo magacooda ku qoran oo ayna intooda ugu badan ku jiraan, halkaasoo ay runtii aad isaga warqabaan wax walba dalka Jarmalka ka dhaca ee Soomaalida quseeyana iskula wadaagaan. inta badan Soomaalida iyo muhaajiriinta kaleba marka ay tagaan dal cusub waxaa soo wajaha caqabado kala duwan sida helidda sharciga iyo waxyaabo kale. Soomaalida Jarmalka ayaana kamid ah kuwa caqabadahaasi haysta.
sida uu barnaamijka u sheegay cabdulqaadir qaasim oo ka mid ah soomaalida ku nool dalkaasi. guud ahaan caqabadaha haysto soomaalida ku nool wadankan waxaa kamid ah dhanka sharciyada. wadankan soomaalida way ku cusub tahay, markay imaadaan dhibaatooyin badan ay kala kulmaan dhanka sharciyada. sidoo kale barashada luuqada ishbiraaq korsiga. wadankan luuqadiisa waxaa la sheegaa luuqadaha wadamada Yurub mid kamida kuwa adag inay tahay. marka dadka da-da ah inta badan iyo dadka badankoodba barashada luuqada dhibaato badan ay kala kulmaan. sidoo kale aqoonsiga soomaalinimada qofka inuu caddeeyo, meelaha qaar dhibaatooyin badanaa ka jiro arrintaas, qofka inuu caddeeyo soomaalinimadiisa. sidoo kale dhalinyarada dhibaato aada u weyna waxay ka haystaa dhanka balwadda noocyadeeda kala duwan leh, taasoo meelaha qaar markaa tagtid aa ka dareemi kartid xabsiyada iyo meelo badanba dhibaatada ka haysato dhalinyarada balwadda. waxaa jiray warar laisla wadaagayay baraha bulshada warbaahinta Jarmalkuna ay qortay oo la xiriira dhibaatooyin ka dhex dhacay qoysas Soomaaliya. sidoo kale waxaa jirta in Soomaali laga celiyay dalkaasi kuwaasoo qaarkood loo celiyay Soomaaliya. waa kan mar kale Axmed Kadiyo arrimahaasi ka hadlaya. wuxuu ka hormarayaa dhibaatooyinka ka dhex dhacay qoysaska. xaqiiqatan waxyaabo qaar oo ay Soomaalida Jarmalka degan ka wada argagaxeen wuu ka dhacay dalkan oo ay Soomaali kala geysteen. waa sax sanadkan way jirtay gabar uu ninkeedii dilay allaha u naxariistee. 2 sano ka horna nin xaaskiisa mindigeliyey wuu jiray, balse falal xad dhaaf ah oo soo noqnoqday amaba joogto ah ma ahan. laakiin dhacdadii sanadkan ugu dambeysay ee gabadha uu saygeeda dilay ayaa noqotay mid baraha bulshada aada ugu faafta. taasi ayaa malaha tuhun keeni kartaa in Soomaalida Jarmalka dhexdooda ay falal ceynkaasi ah kusoo bateen, balse sidaasi loo dhigayo hadalka ma ahan. sanadkan 6dii bil ee ugu horeysay Soomaalida dalkan Jarmalka laga celiyey, wadamada kale ee Yurub ha loo celiyo amaba Soomaaliya ha loo celiyo. tiro ahaan Soomaalidaasi la celiyey waa 90 qof, balse kuwa dalkii hooye loo celiyey tiro ahaan waa 4 qof sida ay xukuumadda Jarmalka sheegtay. celinta dadka Soomaaliya loogu celinayana mar waa qaab qasab ah oo dadkii oo aanan rabin ayaa la celinayaa, mar dadka qaar ayagaa doorta in la celiyo, marna dad dambiye galay oo xabsiyo ku jiray oo la celinayo ayaa jira. laakiin celinta ugu badan waa tarxiil qaab qasab ah ku yimaada. marka laga soo tago caqabadaha haysta Soomaalida ku nool dalkaasi Jarmalka, waxaa dhanka kale lagu ammaanay kuwa ku cusub gaar ahaan dhalinyarada sida ay diyaar ugu yihiin inay dhex galaan bulshooyinka kale iyo barashada xirfado cusub oo ay ku maareeyaan noloshooda. sidoo barnaamijka Qurbe u sheegay Xasan Baalle oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku nool dalkaasi. runtii horumarada ay sameeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee Jarmalka ku nool way badan yihiin. waxaa ka mid ah ganacsiga noocyadiisa kala duwan oo runtii aada ugu soo badanaya magaalooyinka ay Soomaalidu degtay. dadka inta badan dhalinyarada ku nool Jarmalka way shaqeeyaan, gaar ahaan ragga. sidoo kale waxay bartaan xirfadaha qaybahooda kala duwan. waxbarashada caadiga sida jaamacadka iyo kuliyaadka way ku jiraan. waxaa yar ka qaybgalka siyaasadda, sababtuna waxay tahay weli waa dad cusub oo waxay u badan yihiin inay cusub yihiin. laakiin waxaa jira ururo ka shaqeeya arrimaha bulshada sida isdhexgalka, isboortiga, arrimaha masaajida iyo iyo isku wadida bulshada. ka sokow caqabadaha u gaarka ah Soomaalida iyo dadka kale ee sogolootiga ay ku nool dalkaasi, waxaa jira dhibaato kale oo dhammaan dadka dalkaasi ay ka wada siman yihiin, kaasoo ah xanuunka COVID-19. ilaa iyo axaddii shalay ahayd 9295 qof ayaa dalkaasi u dhintay xanuunka COVID-19. haddaba sidee buu Soomaalida u saameeyey xanuunkaasi? waa kan mar kale Axmed Kadiye. dowladda Jarmalka markii ugu horeysay si wacan ayay ula tacaashay ka hortagidda cudurka corona. Soomaalida dalkan deganna oo ah kuwa dhalinyaro u badan, wax cabasho badan oo dhanka cudurkan ah kama aysan soo yeerin, balse waxaa jirtay xarumo iyo meelal kaamam ah, meelahaasoo dadka ku jiray Soomaali xataa ay ka mid ahaayeen oo uu cudurku si xun ugu faafay. dhanka kale saameyn waxaa jirto in dadka qaar oo shaqayn jiray ay shaqooyinkoodii ku waayeen xaaladda lagu jiro awgeed, qaarna saacadihii ay shaqayn jireen ay soo yaraadeen. taasina Soomaalida waxay kala siman yihiin bulshooyinka kala duwan ee dalkan Jarmalka ku dhaqan. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay Soomaalida ku nool Jarmalka caqabadaha haysta iyo sida ay isugu xiran yihiin. inta aan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo barnaamijka qurbi inoogu soo diyaariyey magaalada Toronto.